waxaa halkan ku xariisan qaybaha kala duwan ee ciidamada qalabka sida horay waxaa xeradan loogu tababaray ciidamo booliis ah haddana sugayo qalabayn iyo sidoo kale howlgelin halka xilligan uu tababar uga soconayo ciidamo militari ah oo la doonayo inay xoreeyaan deegaanada ay nabadiidka gacanta ku hayaan. waxaa maanta booqday mas-uuliyiin uu hogaaminayay wasiir ku-xigeenka wasaaradda tamarta iyo biyaha xukuumadda federaalka xildhibaano iyo mas-uuliyiin ka tirsan maamulka gobolka Gedo iyo sidoo kale kuwa degmada Baardhare. ciidamadan oo daris la ah duruufo kala duwan ayaa mas-uuliyiinta waxay soo kormeereen dhammaan qaybaha ay xeradan ka kooban tahay. gaashaanle Cusmaan Cali Saalax Qulqul taliyaha dugsiga tababarka ciidamada qalabka sida ee magaalada Baardhare ee gobolka Gedo iyo sidoo kale Sheekh Maxamed Xuseen Isaaq Alqaadi gudoomiyaha gobolka Gedo ayaa uga warbixiyay xaaladda ciidamada wasiirka iyo sidoo kale mas'uuliyiinta la socday. hadal badan ma rabo waxaan rabaa inaan wasiirka ku soo dhaweeyo xildhibaanka iyo gobernatooraha waxaan rabaa inaan gobernatooraha gobolka iyo wasiirka iyo xildhibaanada aan ku soo dhaweeyo maanta waxaa farxad noo ah inay dawladdii barna la joogto iyo golihii shacabkaba aad baan ugu faraxsannahay wixii baahi ah halkaa ka jira iyo wixii muxuu ahayd horumar ah oo intaba aan rabna inaan fariin ahaan ugu dhiibno wasiirka iyo xildhibaanada mudane wasiir halkaa waxaa fadhiya ciidamada qalabka sida military iyo police difaacaddii hore oo ka qalajibisay dugsigan oo 18 bilood halkaa ku jirta waa kuwa laguna wareejiyay ciidanka booliiska Soomaaliyeed difaacaddii dambe ee militariga loo tababarayo muddo bila dugsigan ku jirana waa kuwan aad waxaan ugu faraxsanahay maanta inaad hor taagantiin ku soo dhawow mudane wasiir بعد السلام maanta farxad bay noo tahay inaan idin imaano oo ciidankan qalabka sida ee Soomaaliyeed oo loo tareerin gareeyay in ay ka difaacaan shacabka Soomaaliyeed cadowga arxanlaawayaasha ah oo mar walba dhibaatada la hortaagan waxa kale oo farxad noo ah ciidankan halkan ku diyaarsan in ay hor yimaadaan wasiirka iyo xildhibaanka in maanta ay idin soo booqdaan oo halkan ay noogu yimaadaan farxad aad iyo aad aan loo soo koobi karin way. wasiir ku-xigeenka wasaaradda tamarta iyo biyaha xukuumadda federaalka Cusmaan Ibraahim Owlibaax ayaa saraakiisha ciidamadan u sheegay in dawladoodu ay ka warqabto isla markaana madaxda sare ee dalka warbixinta ciidankan ay gaarsiin doonaan. anagoo dhan dalkoo dhan ku tiraysa aniga runtii ma filanaynin ciidan in meesha joog waa garanayay oo muddo dheerna meeshan tababar ku socday laakiin niyadiina iyo xaaladda aad ku sintiin iyo tiradiina markaan arkay runtii sidii shalay aan malaynaay maanta waa ka duwan tahay runtii aadan ugu faraxsanahay madaxweynaha iyo wasaaraha waa gaarsiinaya waxa idinka aad ku sugantihiin haddii ilaahay yidhaahdo iyo mid guudba waxaan u celinayaa ninka la yiraahdo taliya qulqul iyo macallimiintiisii ayaan u celinayaa oo runtii yani ayadoo sidaan ay tahay ku shaqeynaa waxaan ilaahay ka baryaynaa in guul idin siiyo annagoo dhan guulna siiyo dalkeena uu noqdo dalalka kalme deriska la mid ah raggeynaan oo hub helay oo adow ka adkaaday waana gabaabsi waa adowna waa ka adkaan doonta haddii ilaahay yidhaahdo marka waxaan idinka ballan qaadayaa in cod dheer aan ku gaarsiin doono يعني حالات إنك كسوغان تين سيدي أرنتين لو سو جبجبين لا وأوجاي إذا ما بدن إن لكيني وماشان لو كيني أو إدوء ماشان بدن لكيني أو سومالي سوق جرتا أو تربان وأوجاي والله الصورة وحنكلو ماشان كبيننا يا تذكر نهايو بعد إذا كوهذا سنجفوا هاي تذكر نهايو وبيننا ما أجيف ما إذا سومالي أوجاي بيس كلبو سوق جروا gobolada Soomaaliyeed ka koobay oo laga kala keenay marka ma kan diiday in ciidan Soomaaliyeed isma kan diiday oo dhahay qabiila meel lagu arko kan dhahay nin kuwa diidan in dalkan ismu kuwa diidan in ummadan dhibaatada ka baxay inay diido aad iyo aad u maasantiin Umar Aydurus Ahmed warbaahinta qaranka magaalada Baardhare ee gobolka Gedo.